asxaabta dhammaantiin soo dhawaada su'aala maanta rabo inaan ka jawaabo oo ah sidee duuliyo lagu noqdaa. laakiin intaan su-aasha ka jawaabin duuliyanimadu iyo laysinka si u kala baxaan in sheegaya haddii aad rabtid professional oo inaad ku shaqaysatid 4 laysin u baahan tahay. kan koobaad waa private, macnaheedu wuxuu yahay markaad laysinkaas qaadatid waa duuliyaad tahay laakiin familkaaga iyo asxaabtaada la qaadi kartaa, laguma ogola dad kale oo lacag ka qaadatay inaad qaadatid. waxaa ku xigo instrumentiga diyaaradda roobka iyo daruuraha ku dhex wadi kartaa. kan ku xigo waa commercialka, macnihiisu waxay tahay commercial baa tahay markaan dad waa lagu hire gareyn karaa, shaqa lagu siin karaa. kan u dambeeyana waxaa waaye multi engine oo diyaarad 1, 2, 3 ama 4 engine leh aad wadi kartaa. so multi engine kaas u baahan tahay ugu dambeyntii 4 laysin baa qaadatid. boom. Guys, today I'm going to show you how to start an airplane. You don't need a key. First, battery is on, and then you just push here. And there you go. Dhammaantiin soo dhawaada. Last week horta waxaan idin sheegay pilotnimada iyo laysinada la qaato say waxay u kala baxaan. maanta waxaan idin sheegayaa adduunka meesha rabta ka joogto sida aad ku bilaabi kartid. So the first thing you need to do is get your private pilot license. Okay, how? jaamacad waa loo aadaa pilotnimada laakiin jaamacad uma baahnin. hadda ka soo qaado kale flight school waxay dhahaan jiro. so hadda London oo kale iska Google gareeyay example si aan in siiyo, ama Kenya oo kale iska Google gareeyay. so just call them to Google gareysid or waxaa Google gareysaa flight school near me, and then lambarka ku soo baxo call them. okay, marka call gareysid ballan ka dhigo. hadda London oo kaleeto is $139 introductory flight waxay dhahaan. Maraykanka is anywhere between $100 and $200. Kenya sidoo kale waaye. so adduunka dhan isku mid waaye. get your private pilot license marka ugu horeyso, and then waxa kaleeto su'aal fiican waaye. horta pilotnimada intay qaadato waxay ku xiran tahay qofka, sababtoo ah jaamacad ina aadid uma baahnid. school ina subject oo major u baratid uma baahnid. kali wax flight school la dhahayo u baahan tahay. aniga ahaanteeda 1 sano igu qaadato, maybe 1 sano bar igu qaadato, laakiin dada 9 bilood ku qaata laysinada dhan oo pilotnimada. flight school u baahan tahay kali ina aadid. marka meesha adduunka ka joogta ka joog, Google gare flight school near me, marka ka bacdina inta tagtid ayaga ku sheegayaan inta saacadooda laga baahan yahay iyo qarashka iyo requirementiga basically schoolkaas ay ku sheegayaan. dad badan waxay soo weydiiyeen diyaaradda meel qof lagu wadaa. diyaaradda badan 2 qof lagu wadaa. hadda maanta oo kale aniga iyo Justin isla wadna diyaaradda. markuu asaga wado waxa hadalka oo passengerka lala hadlayo ee traffic control ana sameeyo. marka aniga wadana asaga hadlayo. marka waa isdaba marsanaa. marba qof wado magaalada marka aadina qof wado. ma garataan cadaankan iska ilaaliya. What did you say? That's my boy Justin. All right, it was a joke. Cadaanka iska ilaali. You know what that means? Watch out for white people. Exactly. qof Soomaali markuu airportka arko abo pilot runa ma taha. yes midda kale pilot runa wax feega ma jiro. dar inta iska soo xirto oo ID soo qaato ma airport iska dhex wareega sidii maxaa dhihi jiray sidii abtooy abiga dhigteen. nimu heba bawsi lama gaaro tartan lama bandhig shanta xidig shanta wiil shanta beelista